sidaad horeba ula socoteen waxa inuu ka soo waranay laba qaybood oo hore madaxweynihii lixaad ee dalka Soomaaliya Cabdilaahi Yuusuf Axmed aynu ka sii ambaqaadno haddaba halkii ay inoo joogtay oo ahayd ilaa uu ka gaaray magaalo madaxda gobolka Negele 1978 aniguna waliba barqiye 1978 waxa dhacay inqilaab lagu doonayay in lagu afkambiyo dawladii uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre kaasoo fashilmay wuxuuna Korneyl Cabdilaahi Yuusuf u fakaday dhanka iyo dalka Itoobiya haddaba 1978 ayuu dalka Itoobiya ka aas-aasay ururkii ka soo horjeeday dawladii Soomaaliya ka jirtay oo la magac baxay SSDF sanadkii 1985 ayuu Mengistu Haile Mariam xabsi ay lahaayeen ciidamada oo ku yaalay Itoobiya u taxaabay Cabdilaahi Yuusuf 6 sano oo kale ayuu xirnaa wuxuuna xabsigii Itoobiya ka soo baxay 1991 kadib markii uu dhacay maamulkii Mengistu Haile Mariam xilligaasi oo dawladii Soomaaliyana ay burburtay waxa uu tegay gobolada waqooyi bari ee Soomaaliya halkaas oo uu madaxweyne ka noqday dawlad goboleedkii Puntland oo la aas-aasay bartamihii sanadkii 1998 waxaana uu halkaas madaxweyne ka ahaa ilaa uu ka tegay Eldoret Nairobi Kenya oo lagu soo dhisay dawladii federaalka ku meel gaadhka ahayd 10 Oktoobar 2004 waqtigaas oo Cabdilaahi Yuusuf uu noqday madaxweynaha dawladii dhexe ee federaalka ku meel gaadhka Soomaaliya jagadaas oo uu muddo ku taamayay in uu gaaro waxaana uu dhowr jeer intii uu shirka Kenya socday ku celceliyay in uu isagu bilaabay dibka Soomaaliya una isagu dhamayn karo 24 Disembar 2008 waxa soo shaabaxay in Cabdilaahi Yuusuf iska casili doono madaxweynaha dawladda federaalka ku meel gaadhka ah 29 Disembar 2008 ayaa Cabdilaahi Yuusuf iska casilay xilkii madaxtinimo halkaas ayay inoo joogaysaa la socda qaybaha dambe hadii eeba idmo insha Allah